shaydaanku dadka laba cirif buu kala ciyaaraa. wuxuu kaga ciyaaraa si uuna maanta dharaartiisa una qofkaasi uga faa'iidaysan, ilaahay weynidiisana uu ilowsiiyo. shaydaanku wuxuu kala ciyaarayaa wixii tagay. waxa tagayna waxa ku jira caro aad leedahay qofka waxa kugu sameeyay amba arintaa ku seegtay. qofku wuxuu ku jirayaa alla waxaas ay seegay alla hadii marka wuxuu badiyaa dadka kala ciyaaraa cirifkaasoo kala ciyaaraa wixii tagay inuu ka geliyo qoomamayn maanta oo dhan qofku inuu naftiisa canaanto. marka wixii tagay buu kala ciyaarayaa si aad maanta waxaad qabsan lahayd u ilowdid, ambase wuxuu kala ciyaarayaa waxa soo socda. oo waxa soo socday future-ka dadka wuxuu ka geliyaa shaydaanku walwal iyo cabsi. waxa soo socdood ka cabsi qabto, waxa soo socdood ka walwal qabto, talow miyaan heli, talow qofka hadduu ku jiro wuxuu ku ilowsiinayaa shaydaanku, wuu nagu ilowsiinayaa weynida ilaahay. wuxuu kugu ilowsiinayaa waxaad maanta qabsan kari lahayd ood beri aad gaadhayso insha allah. haddaba suuna shaydaanku kuu ilowsiin maanta waxaad qabsan karaysid iyo weynida rabbi suuna kuu ilowsiin labada cirifuu kaala ciyaarayo iska ilaali. shaydaanku markuu doonayo qof in mustaqbalkiisa seejiyo, horumarkiisa seejiyo, wuxuu kala ciyaaraa laba cirif. waa wixii tagay iyo waxa soo socda. marka labada cirifuu kala ciyaaraya daway leedahay. wixii tagay eed niyadjab ka qaaday, eed ka cadhaysan tahay, ee qoomama kaa haysatay, ee tagay, ee ku dhaafay, ee dhammaaday, waxaasi waxa lagu dhayaa oo lagu bogsiiyaa istiqfaarta. istiqfaarta waxyaalo badan oo kale ku qabanaysa wuu jiraa. haddana istiqfaartu ayaduna waxbuu dhayaa, waxbuu bogsiiyaa. arrimihii tagay ee shaydaanku kugu mashquulinayo oo maantadan saaka aad soo toostaad waxba ka qabsan kari laadahay, istiqfaarta ku dawey. waxa soo socda hadduu walwal kaa hayo amba isweydiinayso waan dadaalay maxaan waxa uu heli laayahay, amba waxaa ma ii imanaya, waxaa ma helayaa, walwalkaa ku haysta amba arrin aad rabto inaad ku dhaqaaqdo cabsi hadday kaa hayso, arrintaasina daway leedahay. waxaa lagu daweeyaa tawakal cala allah. tawakal cala allah culayska garbaha kaa saaran buu kaa dejinayaa. tawakal cala allah sida kiniinka aad biyaha ku liqiso kiniinku kaaga degayo ayuu kaaga dejinayaa walwalka ku haya, cabsida ku haysa. marka tawakal cala allah oo tiraahdid ilaahay baad weynaysay, waxaad sugaysana ilaahay baad u dhiibatay ood ka sugaysaa. stress badan baa kaa hari, anxiety badan baa kaa hari, hurdo la-aan badan baa kaa hari, su-aalo badan oo jawaabteeda aanad ahayn baa kaa hari. marka hadduu ilaa idhaahdo haddaad doonaysid subaxdaada inaad markaas saa u soo toosto, danahaaga ku ekaato, cibaadadaada ku dadaasho, muxuuha faamilkaaga ka faa'iidaysato, asxaabtaa ka faa'iidaysato, nimcooyinkaa badan oo ilaahayna siiyey sida hawada dibaddeed qaadanayso aad ka faa'iidaysato, indhaha ilaahay ku siiyey waa nicmooyinka ugu waaweyn, kaga faa'iidaysato inaad ku daawato wax qurux badan, geelaha quruxda badan leh, falaawarka quruxda badan leh, wax walbuu ilaahay ku siiyey si aad ugu shukrido ood maanta uga faa'iidaysato. labadaa cirifuu shaydaanku kaala ciyaarayo dawadeeda waa layna siiyey. wixii tagayna waxa lagu bogsiiyaa istiqfaarta, waxa soo socdana waxa lagu celceliyaa tawakal cala allah. ilaahay baa laysku dhiibaa. shaydaanku ilaahay wuu noo sheegay waa cadowgeena lambar 1-ka weeyaan. meel kastuu nagala ciyaarayaa, meel kastuu naga soo gelayaa. dad badan waxyaalihii tagay buu ku mashquuliyaa say maantadooda iyo weynida ilaahay u seegaan. dad badanna waxa soo socda mustaqbalka ayuu kala ciyaaraa, uu ku mashquuliyaa, uu kaga cabsiiyaa, uu walwalgeliyaa. labadaa cirif hadduu kala ciyaaro shaydaanku lugihiyo gacmiba uu kaa xirxiray, waxba maanta ma qabsan karaysa. qofka powerku haysto waxa weeyaan waa maanta, waa waqtigan aynu ku jirno, waa saacadahan maanta kuu socda ayaad power haysataa. powerkaana kulama rabo. shaydaanku wuxuu doonayaa dadka jeebka faqiirka ah, qalbiga faqiirka ah, maskaxda faqiirka ah, dadkaasuu jecel yahay inuu ku ciyaaro oo la dego. shaydaanku wuxuu ka xabsoodaa dadka qalbiga qani ka ah, maskaxda qani ka ah, jeebka qani ka ah. hadduu arkaba qofku inuu dadaalayo wuxuu kala ciyaaraa labadaa cirif si uu soo fariisiyo uuna qofka hore ugu soo. wixii tagay eed ka qoomameynayso, eed ka cadhaysan tahay, eed soo qaban kari laadahay,
ee ku dhaafay ee ku seegay eed isleedahay haddii aan sidaas samayn lahaa haddiidu hadday kugu badan tahay waa camalu shaydaan. waxaad kaga adkaan kartaa oo meeshaa ku xanuunaysa amba walwalkaa ku haysta amba waxa aad tabanaysa eed ka kici kari laadahay ku daweyn kartaa marka ay tahay wax tagay waa istikfaarta. astaqfirullah 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 ku celceli meeshaasay dhayaysaa. istikfaarta aad wadana hadiyado badan baa ku hoos jira oo ilaahay kugu ballan qaado qur-aanka ku qoran. cirifka kale uu shaydaanku kaala ciyaarayna waxa weeyaan waxaa soo socda eed ka cabsoonayso qabashadeeda, waxa soo socda eed isweydiinayso sababba u iman laadahay. shaydaanku hadduu xaggaa kaala ciyaarana waxba ma ka qabsan karaysid. ilaahay weynidiisaad iloobaysaa. ilaahay inuu koonkan iska leeyahay oo xilligu doonayo isagoo wax ku siinaya baad iloobaysaa. marka taana waxaad ku bogsiin kartaa tawakkal cala allah. labadaa cirifku kaala ciyaaraya haddaad midna istikfaarta ku badiso midna tawakkal cala allah aad ku badiso waxaad ka faa'iidaysanaysaa si dhab ah dharaartaada maanta cadceedu kuu soo baxday ee jaaniska lagu siiyey inaad waxyaalo badan aad naftaada ugu qabato iyo aakhiradaada. waxaan kuu rajaynayaa guul badan, farxad badan iyo horumar badan. asalaamu calaykum.